munaasabadan oo ay soo qaban qabiyeen haweenka gobolka Banaadir laguna qabtay xarunta murtida himilada ee tiyaatarka qaranka ee Muqdisho ayaa waxay ahayd mid lagu taageerayay madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud. Munaasabada ayaa waxaa ka soo qayb galay gudoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada gobolka Banaadir, gudoomiyaha ururka haweenka qaranka, qaar ka mid ah gudoomiyaasha degmooyinka gobolka Banaadir iyo haweenka 17 degmo ee degmooyinka gobolka Banaadir. ugu horreyn waxaa munaasabada ka hadlay qaar ka mid ah gudoomiyaasha degmooyinka gobolka Banaadir iyo haweenkii kulanka ka soo qayb galay iyagoo soo dhaweeyay madaxweynaha cusub ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud. sida sharafta leh aad haweenka gobolka Banaadir oo isku duuban aad maantay halkan taageerada quruxda badan ee madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ee haweenka caasimada ay ku soo dhaweynayaan. waxaan leeyahay hambaliyo 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 anigoo ku hadlaaya magaca maamulka degmada Warta Nabadda iyo haweenka caasimadaba. waxaan leeyahay madaxweyne waxaan ka sugeynaa insha Allah haweenka halkan fadhiya waa haweenka caasimadan ay ku taagan tahay. waxaan leenahay mudane madaxweyne hambaliyo hambaliyo mar labaad iyo mar saddexaad. waxaan ku leenahay hool lagu tilmaami maayo, haweenka lagu tilmaami maayo, shaqo lagu tilmaami maayo. haweenka Soomaaliyeed oo gobolka Banaadir garabkaaga ayay taagan yihiin. waxay ku leeyihiin mudane madaxweyne soo dhawow, waa kula shaqaynaynaa sidii hore lagu soo shaqeeyo kaleeto 5 sano ka hor markaad madaxweynaha ahayd. haweenka Soomaaliyeed waa kula shaqeeyeen, garabkaaga ayay ahaayeen, maantana garabkaaga waay. waxa weeye horta madaxweynaheena Xasan Sheekh waxaan ugu duceynaynaa inuu ilaahay u fududeeyo dawladda, ilaahayna garab galo. kollay waxaan ku codsanayaa inuu ku dadaalo cadaaladda, ku dadaalo waxqabadkiisa. waxaa muhiimadda cadaaladdaas inuu ka shaqeeyo si aan loo fashilmin. waa aragnaa annaga dhibaatooyin badan degmooyinkaan joognaa aan ka shaqeynaa. waxa weeye magaalada xamar war noolama haayo, shaqo waa haynaa laakiin lagama warqabo. war ma harin, laakiin waxaan rabaa inaan ku soo koobo oo keliya mudane Xasan Sheekh waxaan ka maqalnay madaxweynahayna in uu gaarsiin doono waddanka qof iyo cod inuu gaarsiin doono. taas haddii aan nahay haweenka gobolka Banaadir aadan u soo dhaweynaynaa. sidoo kale gudoomiyaha ururka haweenka gobolka Banaadir Jawaahir Baarqab iyo senator hore Muna Cumar Xasan oo munaasabada ka hadlay ayaa sheegay in ay soo dhaweynayaan madaxweynaha cusub ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud. waxaan rabaa inaan codkiina ku hadlo, anigoo raba inaan la dardaarmo u duceeyo madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya Professor Xasan Sheekh Maxamuud. waxaan rabaa haddii ilaahay idmo ugu horreyntii inaan ku hadlo codka haweenweynaha gobolka Banaadir, gabdhaha ku dhaqan caasimadda, kuwa deegaanka gobolkan Banaadir ee noo yimid, senatarada, xildhibaanada, hooyada baahan, hooyada qurbaha joogta, hooyada gobolada jirta, ummadda Soomaaliyeed meel walba ay joogaan, gaar ahaan haweenka, inaan maanta codkooda aan ku dhaho madaxweynaha Soomaaliya madaxweyne soo labashadaada mar labaad hambaliyo hambaliyo hambaliyo. taageerada ay u muujinayaan bulshada reer Muqdisho iyo soo dhaweynta madaxweynaheena jamhuuriyadda mudane Xasan Sheekh Maxamuud. waxaan leenahay intaas oo haweena waxay maanta hawlahooda u soo dayaceen, rag iyo dumar oo arkaysaa sidoo maanta u buuxo tiyaatarku. waxay hawlahooda u soo dayaceen oo ay caruurahooda uga yimaadeen in ay ku taageeraan, ay ku garab istaagaan. dawladnimada wax loo dhigaa ma jirto. ugu dambeyn waxaa munaasabada soo xirtay gudoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada maamulka gobolka Banaadir Basmo Aamir Jaketi. cabdisalaan aadaan ugu faraxsanahay xafladan quruxda badan ee soo qaban qaabiyeen haweenka gobolka Banaadir oo hormuudka ay u tahay gudoomiyaha ururka haweenka gobolka Banaadir Jawaahir Baarqab. waa munaasabad aad u qiimo badan oo lagu taageerayo, lagu garab istaagayo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud. madaxweyne mar labaad iyo mar saddexaad waxaan ku leenahay hambaliyo hambaliyo hambaliyo. madaxweyne waxaan ku leenahay maamulka gobolka Banaadir dhammaanteen iyo bulshadeena iyo isku xiran waxaan garbahaaga u taagannahay inaan kula shaqeyno, kula garab istaagno howlaha culus oo ku hor yaalo in Ilaahay kuu fududeeyo.
ogeysiis muhiim ah xarunta timaha iyo maqaarka ee Infinity Hair and Skin Care waxay idinkugu diyaar ah dhakhtar iyo qalab casri ah oo lagu ogaanayo waxyeelada timaha kana daweynaya timaha sida daadashada ku timaada rag iyo dumar khafiif ku yimaada timaha rag iyo dumar beerista timaha garka iyo daweynta dhammaan cudurrada ku dhaca timaha sida agoolka iyo waxyaabaha la midka ah xaruntu waxay idin sameynaysaa 25 May tima beeris oo ay sameynayaan dhaqaatiir Turki ah xaruntu waxay ku taallaa wadada Maka al-Mukarrama gaar ahaan isgoyska Xaaji Baasto telefoon lambarada aad kala xiriiri kartaan waxaa kamid ah eber 62494522 ama 84 eber 214 balanteenu waa xarunta tima beerista iyo maqaarka ee Infinity Hair and Skin Care ogeysiis muhiim ah xarunta timaha iyo maqaarka ee Infinity Hair and Skin Care waxay idinkugu diyaar ah dhakhtar iyo qalab casri ah oo lagu ogaanayo waxyeelada timaha kana daweynaya timaha sida daadashada ku timaada rag iyo dumar khafiif ku yimaada timaha rag iyo dumar beerista timaha garka iyo daweynta dhammaan cudurrada ku dhaca timaha sida agoolka iyo waxyaabaha la midka ah xaruntu waxay idin sameynaysaa 25 May tima beeris oo ay sameynayaan dhaqaatiir Turki ah xaruntu waxay ku taallaa wadada Maka al-Mukarrama gaar ahaan isgoyska Xaaji Baasto telefoon lambarada aad kala xiriiri kartaan waxaa kamid ah eber 62494522 ama 84 eber 214 balanteenu waa xarunta tima beerista iyo maqaarka ee Infinity Hair and Skin Care ogeysiis muhiim ah xarunta timaha iyo maqaarka ee Infinity Hair and Skin Care waxay idinkugu diyaar ah dhakhtar iyo qalab casri ah oo lagu ogaanayo waxyeelada timaha kana daweynaya timaha sida daadashada ku timaada rag iyo dumar khafiif ku yimaada timaha rag iyo dumar beerista timaha garka iyo daweynta dhammaan cudurrada ku dhaca timaha sida agoolka iyo waxyaabaha la midka ah xaruntu waxay idin sameynaysaa 25 May tima beeris oo ay sameynayaan dhaqaatiir Turki ah xaruntu waxay ku taallaa wadada Maka al-Mukarrama gaar ahaan isgoyska Xaaji Baasto telefoon lambarada aad kala xiriiri kartaan waxaa kamid ah eber 62494522 ama 84 eber 214 balanteenu waa xarunta tima beerista iyo maqaarka ee Infinity Hair and Skin Care